بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسدو داودة كنال كسهل قوشة. معناتها قصة إيديها هي وقصة عجيبة ورنتي جاية بالصي. وحنا ودعيسة قصة سداتان. شنبر أيا دليمي عيل بيكو جيران ودنيرة كعبيسو. shimbirkii ayaa naftiisa ugu sheekeeyay in uu sugo inta ay ka tagayaan dhalinyaradu ceelka wuxuuna ka baqay inay waxyeelaan wuxuu dul haababa way ka tageen dhalinyartii waxaana yimi nin gar weyn shimbirkii waqti badan ayuu sugayay in laga daro ceelka balse markuu odagii muddo joogay ayuu is yiri ninkan garka weyn waxba ku yeeli maayee iskaga dag biyaha cab markii uu shimbirkii fariistay ayaa ninkii garka weynaa dhagax tuuray waxaana uu ku dhacay shimbirkii ayaa dacwadiisa u geeyay nabi Suleymaan calayhi salaam nabi Suleymaan ayaa amray in loo yeero ninka wax yeelay shimbirka markii uu yimi ninkii ayaa shimbirkii soo booday yiri nabi Allah ninkan aniga waxba ima yeelin ee waxa wax yeelay garkan weyn sheekada murtideedu waxa weeye haddii aad aragtid nin weyn oo 60 jir ah una baahan in wax loo sheego u sheeg haddii aad aragtidna wiil 15 jir ah oo haya arrin macquul ah ka dhageyso kuna dhaqan taladiisa xigmadu waxa ku jirta qofka Ilaahay geliyo ee la doono balse kuma jirto garka weyn jiilkan maanta waxaan uga digayaa in lagu degdego garka weyn iyo reer qabiilka waxa idin leeyahay dhalinyaro ka taliya ubadkiina iyo kuwa awood u noqon doontaan ee mustaqbalka dhow imaan doona waa inaynu ka fikirnaa jiilasha sanad walba inoo tarmaya awoodu waa dhalinyarada waa idinka shicibka aynu gacmaha isqabsano waxa haboon in had iyo jeer aynu xulano shakhsiyaad ku haboon duruufaha iyo xaaladda jirta oo dhalinyaradu hormuud ka tahay daawada haddii aad ka heshay qisadan la wadaag asxaabtaada una share garay muuqaalka like saar haddii aad ku soo biirin kanaalka subscribe dheh adigoo furanaya gambaleelka سأقول ساعتي وحول بانك السوق لينو مهد سند